Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Ceebla Cuud. Kheyr Allah idin siiyo sida wanaagsan aad noo dhageysataan. Maanta qiso cusub ayaan idin wadaa. Qisadaaneetu waxa weeye wixii caruur leh waxaan rabaa inaad dhageysataan si fiican insha Allah. Gabar baa waxay tiraahday maalin ayaan si lama filaana gacmahayga u taagay kor Ilaahay xaaladeeda oo dhan Ilaahay ayaan ku wareejiyay. Waxaan iri Rabbiyo waan daalay. wax walba adigaan kuu dhiibay nolosheedii ii hagaaji arrimahaygana adiga ii maamul waxaan qalbigayga ku ducaysay si daacad ah anigoo soo maray dhibaatooyin iyo rafaad badan waxaan jeclaan lahaa inaan horay sidaan u samayn lahaa hal maalin kadib xaaladeedii si buuxda ayay isku bedeshay hal maalin xataa ma ahayn 6 saac gudahood xaaladeedii si cajaa'ib ayay isku bedeshay markii qisadeedii aan idinkaga bilaabo ayay tiri gabadha kow Ilaahay wuxuu i siiyay nimcooyin aad u waaweyn noloshayda wuxuuna igu galladay nin wanaagsan oo saalix ah wuxuu ahaa qof edeb leh diin leh Allah yaqaan waajibkiisana uu aad iyo aad uga soo baxayay wuu ixtiraami jiray qoyskiisana aad ayuu u ixtiraami jiray qof kasta uu la kulmo wuu u roonaan jiray qalbi furnaan iyo wax walba ayuu ula iman jiray run ahaantii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan waxaan guursaday anigoo ka fog qoyskayga meeshii aan ku guursaday iyo guriga hooyaday aan bixi aan ka imid way kala fogaayeen laakiin qoyska ninkeyga aan soo galay aad iyo aad u fiicnaayeen dad Ilaahay ka cabsanaya ixtiraam badan oo cibaado badan bay ahaayeen Allah wuxuu igu abaalmariyay ninkeyga qoyskiisii oo dad fiican ah maadaama aan ka soo fogaa reerkeygii iyo guriga cusub aan deganay safarku aad buu u dheeraayo wuxuu qaadan jiray saacad ilaa 1 saac bar iyadoo xataa traffic ku jiro Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ii galaday oo igu hibeeyay 3 caruur 2 gabdhood iyo 1 wiil dhaqaale ahaan aad baan u fiicnayn waa ladnayn waxba nagama maqnayn alxamdulillaah waxaan u malaynayaa mid ka mid ah sababaha raaxadaas waxay ahayd Ilaahay qanaacada aan lahayn aniga ninkeyga waxaan ku qanacsanayn wax kasta oo Allah na siiyay taas ayaana nolosheena noo fududaysay laakiin 10 sano kadib guurkeenii ninkeygii waxa ku dhacay xanuun caloosha ka galay ugu dambeynna wuu geeriyooday Allah u naxariistay Allah ka dhiga shahiid bay tiri waxaan la imid samir waxaan aqbalay qadarka Allah anigoo qalbigayga ku dajinaya inuu meel wanaagsan maanta u galbaday kadib xanuunkii uu xumaa uu soo maray dartiis markii ninkeyga uu geeriyooday kadib Allah u naxariistay waxaan go'aansaday inaan muddo la joogo reerka xaajigayga ka dhashay oo aan walba la joogay waxaan u baahnaa garabkooda iyo taageeradoodii dhowr bilood kadib geeridiisii qiyaastii markii la dhaafay 6 bilood ama 7 bilood kadib ninkeygii hooyadiis ayaa ii timi waxay igu tiri adigu weli waxaad tahay inan yar haddii aad rabto inaad mar kale guursato anigu kaama hor istaagayo waxaan dhalay wiil yar oo waa adeerka caruurta wuxuu caruurtaada ugu naxariisan doonaa sida aabbahood camal waxay hadalkaas igu tiri iyadoo ilmaha qarka u saaran yahay waan fahmay inay wiilkeedii ii soo bandhigayso oo rabto inaan guursado sababtoo ah waxay u malaynaysay inaan reerkayga aadi doono anigoo ka fikiraya inaan guursado laakiin waxaan ugu jawaabay maya ma guursanayo qofna ninkeyga ma u bedelayo wuxuu ahaa garabkeygii iyo saaxiibkay waan diiday inaan guursado qof kaleeto inkastoo ay ka xumaatay haddana waxaan u sharaxay inaan marnaba aan aniga guurin agteeda haddaan ka guurane aan u imanayo markasto waxaan iibsaday guri oo apartment u dhow waalidkay waxaan waqtigayga u qaybiyay 2 guriga xaajigayga Allah u naxariistay familkiisa iyo familkayga ugu dambeyn waxaan la soo degay waalidkay mararka qaar laakiin waxaan booqan jiray ninkeyga hooyadiis kadib 10 sano ayaa ka soo wareegtay markuu ninkeyga dhimanayay gabadheydii curudda ahaa markaas waxay jirtay 10 jir oo markuu aabaheed dhintay haddana waxay noqotay 20 jir gabadheydii labaad waxay noqotay hadda 16 jir gabadheydii labaad wax cuquba ayaa noo timid gabadheydii labaad baa waxay la saaxiibtay saaxiibo xunxun oo dhaqankeedii buu isbedelay waxay bilowday inay codka kor igu qaado ee igu qayliso mararka qaarna afxumo ee ila timaado waxayna awal samayn jirin bay ahayd inta badanna igama dambayn jirin oo waxay isiin jirtay ixtiraam darro waxaan isku dayay wax walbaba inaan si tartiib ula hadlo inaan edbiyo inaan qarashkeeda aan ka celiyo aan shilin siinin xitaa inaan geeyo dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo culimo diin laakiin wax shaqeeyay haba yaraatee ma jirto saaxiibadeed baa waxay ahaayeen bad influence aad bay uga dambayn jirtay madax adeeg aysan qabinni way la timid meel aan wax ka qabto ayaan waayay markaan la hadlo waxay dhahaysaa haye
kadibna siday doonto ayay samaynaysaa oo meesheedii bay ka miisan jirtay. waxay bixi jirtay aroor hore waxayna soo laaban jirtay habeenkii 11 ilaa iyo 12 habeen barka bay iman jirtay. ma garanayo meeshii aadi jirtay waxay samaynaysan ma garanayn. markaan weydiiyeyna waxay ugu dhihi jirtay adiga wax ku quseeya ma aha, aniga cunug ma ahi, waxaan rabaan samaynayaa ikhtiyaar anigaa leh. anigii wax waan quusta, wax kale aan sameeyaan aqoon waaye. dhammaan wixii aan kari lahaa oo dhan waan sameeyey. waxaan dareemay inaan seegi doono gabadhaydii macaanay. maalin ayaa TV-ga ka maqlay marka hooyo ka cabanaysa wiilkeedii caasiga ahaa. hooyadii waxay sheegtay in wiilkeedii ay ducada xun ay ugu ducaynaysay, duca fiican uguma ducaynayn, way inkaaraysay basically, sababtoo ah dhibkuu ku hayay. shiiqii ayaa la hadlay oo wuxuu uga digay, wuxuu yidhi ha inkaarin wiilkaaga, u duceey hanuun iyo inuu jidka toosan ilaahay ku rido. hadalkaas aad buu ii taabtay. markaas ayaan bilaabay inaan gabadhaydii si daacad ah ugu duceeyo hanuun iyo inaan allahne murugtan iga wareejiyo oo ilaahay wax walba aan qabaf gacmaha ka saaray. carruurteeda kale way ixtiraam badnaayeen, edebna way lahaayeen. iyadu keliya ayaa qoyska dhib iyo ceeb nagu haysay. waxa aan aad ugu dhaqaaqay taladii sheekha. habeenkii gaar ahaan saacad bar fajarka inta ka horreysay ayaan u kacay. ilaahay hortiisaan istaagay. duco badan oo qalbiga iyo laabta ka soo go'day ayaan sameeyey. waxaan idhi yaa allah adigu waad og tahay niyadeyna inay nadiif tahay. haddii tani imtixaan inoo tahay ilaahayo inoo fududay. yaa allah anigu xal ma hayo, xalka adigaa haya yaa allah. arrintan adigaan kuu dhiibay yaa allah. habeenkii oo dhan gabadhan way ducaynaysay. yaa allah anigu adigaan kuu dhiibay wax kasto yaa allah. waxa dhacday wax aan la yaabay tiri. markaas ka bacdi waxay u ekayd wax mucjiso ah. allah wax walba uu karaa oo wuu awoodaa. haddii aad ku jirto xaalad adag, ku wareeji ilaahay subxaanahu watacaala, kuna kalsoonow in allah uu wax kasta kuu maamuli doono. isdeji, allah u daa. qiyaastii 5 saac ilaa 6 saac gudahood gabadhaydii ayaa ii timid iyadoo degan oo qabow oo si kalena iila hadlaysa. waxay tiri hooyo i cafi, wixii aan sameeyey oo dhan iga cafi. aad iyo aad ayaan uga xumahay. waxaan gartay inay tani tahay bilow cusub. markaas ayaan qalbiga u dejiyey waana u naxariistay. waxay ii sheegtay inay ku riyooto riyo. waxay tiri waxaan dareemay in aabbahay uu iga carooday. riyada dhexdeedii aabbaheed ayaa ku yiri adigii halkii aad iiga ducayn lahayd waxaad dadku u ogolaatay inay duco xun aniga iga sameeyaan, inay inkaaraan oo ay dhahaan gabadhan reerkee ka timi baa bala ah. markay ii sheekaynaysay aad bay u oynaysay gabadha. riyadu qalbiga ayay gelgishay. riyadan ay ku riyootay qalbigeedii ayay aad uga naxday. aabbaheed aad bay u jecleed, aadna way ugu dhoweyd. waxay tiri riyadu waxay ahayd mid dhab ah, aan si ilaa horteed inuu taagnaa camal ayaa u malaysaa. aabbaheed marka wuxuu yiri anigu waxba kaama galabsan, nolosheedii oo dhan intaan noolaa adigan kuu huray. maxaad u ogolaatay dadka inay igu duceeyaan ducada xun oo adiga ii soo jiidaysid? intaa wax fiican ii soo jiidi lahayd, dadka ii ducayn lahaayeen gabar fiican bay u dhalay, allah u naxariisto. maanta waxaa dadka niyadda balaayo iyo hoog iyo inkaar baa ii soo jiidaysaa. waxay tiri markaan riyadii ka toosay ilmadii waa joojin waaye 2 sabab darteed. waxaa si daran u tagay aabbahay baa aad ugu xiisay. waxaan dareemayna inuu ii xanaaqsan yahay. aniguna waa la ooyey. qulubtii intaan u dejiyay ayaan waxaan ku iri aabbaha hadda meel fiican buu ku jiraa insha allah. ducada aad u dirto waa hadiyad uu farxad u ah. waan ku dhiirigeliyey aabbaha u ducey, ha samayn wax xaraam ah ama khalad ah. samee wax uu ku faano, wax uu ku farxo samee aabbaha. si tartiib gabadhaydii si buuxda ayay isku bedeshay alxamdulilah. waxay bilowday inay xijaabka xirato, inay qur-aanka xifdiso, inay waxbarashada ay ku fiicnaato. waxaasoo dhan waxay noqdeen sababtii aan ilaahay gacmaha kor ugu taagay darteed. ilaahay ducadii aan kor ugu qaaday gacmahayga aan u ducaystay oo anigoo weliba daacad u ahay oo wax kale aan meel kale aan fiiriy aqoon la ahay oo wax kale aan sameeyay aqoon la ahay oo meeshii ugu dambaysay iga taagantahay ilaahay gacanta ku taagay. ilaahay fadligiisa gabadhii waxay gashay kulliyadda caafimaadka sida aabbaheed mar walba ay ku oran jiray oo u rumaysnaa inay gaari doonto. carruurtiina u duceeya, hana ka quusanina, ha u adkaanina, hana niyad jebina. allah waa kan hanuuniya dadka, carruurta, qof walbaba. ducada waxay bedelaysaa carruurta, waxay ka bedelaysaa carruurteena caasinimo iyo baadi, waxayna isku bedelayaan toosnaan iyo wanaag. ugu duceeya carruurtiina hanuun, ilaalin iyo guul. allah idin barakeeyo, allah ha barakeeyo qoysaskiinana. allahumma aamiin.
حسوس برت وجمع عاو جمع مركا صلواتك بدية إن شاء الله. waxaan rabaa qiso labaad inaan idinkugu daro oo ku saabsan salawaadka maadaama caawa ay jimco tahay birina ay jimco tahay ducadeena ku jirto halka saac casirkii iyo maqribka inta u dhexaysa marka haweeney Yurub ku nool ayaa guursatay balse uur maysan yeelan in ka badan 2 sano dhaqaatiirtu mar walbaba waxay bedelayeen go'aankooda midba wax u sheegayay ugu dambeyn waxay u sheegeen iyada in tubooyinka oo fallopian tubeska ayaa xirmeen uurka tubooyinka u qaada baa xirmay dhaqaatiirtuna waxay ku adkaysatay in laga saaro iyadoo way baryootay waxay tiri at least hal iga bixiya kan bidixda iga bixiya kan midigta ii reeba maadaama kan midigta wax yar furan yahay waxaa laga yaabaa inaan uur qaadi doonee laakiin dhaqaatiirtu way ku adkaysatay waxayna ku qasbeen inay saxiixdo waraaqda ogolaanshaha in labada tubo laga saaro iyadoo qalbigeeda jaban ayay iska siixday toddobaadkaasoo dhan marnaba kama tegin istighfaarta waxayna si joogto ah ugu akhrinaysa also salawaat ibraahimiya ee akhrinaysa sidoo kale waxay ku dadaashay salaada habeenkii tahajjud 2 maalmood ka hor qaliinka ducadeedii way sii kordhisay waxayna mar walba ku celcelinaysay oo Allah adiga baa wax walba hayee adiga latiif ah adiga khabiir ah ilaah aad wax walba keenaysay ilaahay ii fududay qaliinkii kadib dhakhtarkii hore wuxuu u sheegay labadii tubaba waa ka saarnay iyadana waxay tiri ilaahayo iiga abaarmari musiibadan oo khayr iigu badal toddobaad kadib markii ay dib ugu noqotay oo la baaray maadaama oo check up ayay u tagtay dhakhtar kale ayay aragtay dhakhtarkiina wuxuu ku yiri tubooyinkaaga xaaladoodu way fiican tahay oo waa dayactirna hadda waxba lagama saarin way naxday way rumaysan weyday waxay Europe waa taqaanaa Europe hadii lagu dhawaraaqa waxa laga sameeynaa mar walba way sameeyaan majority laakiinse idana wixii idoo sixiday baa ilaahay amarkii wixii weyd inta dhahan waan sameeyno waa ka saarnay tubooyinkii baa haddana tubooyinkii wali far xamalisa ilaahay inuu what happened we don't know laakiin suddenly tubooyinkeedii way leedahay nimankii inay sameeyeen bay u agtahay waa loo hagaajiyay an alxamdulillah tubooyinkeedii wali way haysatay waan loo hagaajiyay waa qiso cajaa'ib leh qiso kale raba inaan ku daro yar gabar ayaa tiri wixii aad u jeclayd sheekooyinka dhikriga markaas ayay nafteedii u samaysay jadwal maalinle oo adkaar ah waxay saacado badan u goyn jirtay salawaadka gaar ahaan salaatul ibraahimiya sanadkii markuu ahaa 2025 ayay bilowday istighfaar xoog ah waxayna tiri maalin walbaba kama yareyn jirin 10,000 oo istighfaar inta ay wadadaas ku jirtayna waxay la kulantay dib u dhac iyo ciriiri lacagtii ayaa ciriiri ku noqotay guurkii ayaa dib uga dhacay ilaa ay ka gaartay da'da 36 jir laakiin ma aysan quusan waxay waday iyadoo qalbi yaqiin leh that is the issue ma ogtahay yaqiin in la imaato waay wax walbaba oo dhaca yaqiin in la imaato so waxay tiri ilaahay wuxuu igu caafimaad siiyay xanuunkii dhabarkii xanuunin jir waa iga baabay hadda aniga wax daawo aan qaadan inkastoo shaqadeeda ay tahay shaqo 8 saac la istaagan yahay maanta dhan sidoo kale ilaahay wuxuu igu caafiyay baabasiir baan qabay daawooyinkii aan isticmaalay dhan waxba igama tarin dabadeedna waxay heshay daawo fudud oo caawisa iyadoo weligeed ku dhagan dikirkeedii qiyaasii 8 bilood ka bacdi nin muslim ah oo diinta ku adag kana yimid dal kale ayaa guur u soo bandhigtay waxayna sheekadaasi ku dartay inay qorsheynayaan inay mar dhawaan isguursan doonaan insha Allah waxay kaloo tiri mar walba waxaa la tirin jiray dadka agteeda jooga ardadayda shaqaalaha inay oo la shaqeeyo inay sameeyaan adkaarta waxayna ku dhiirigelin jirtay tartan oo isbuuc ah istighfaar iyo salawaad si ay u arkaan khayrka isbedelka uu ilaahay u keeni karo taas idinka ma sameysaan dadka agtiina joogo waayig waxaa aniga istighfaar iyo dhikr iyo waxa mar waxa igu horeysay adiga 3-4 markaan bilaabayay qisooyinkan baa igu horeysay awal waa iska socday allahay alla waxaan kala ogaa haba yaraatee ma jirin istighfaar ya iska istighfaar waa dhijir wax yar lama astaghfirullah allahumma salli ala salam tabaarakta ya jalaal wal ikram intaas u baa igu filan istighfaarteed waagaas as dhijir laakiin adduun dhan aan la soconin baa jirta bilaan subhanallah naaw hadda marka dadka ma u sheegtaan idinka ma dhahdaan wixii dhibaato ku jiro qof wareersan qof depression haayo qof lacag la'aan haayo anaga kulligeen moogtahay caafimaad completely ma haysano
lacag badan ma haysano laakiin hal wax ayaan haysanaa dadka istikfaarta gacanta ku dhegan iyo salawaadka iyo dikirka ilaahay ballanta ilaahay oo ah qaluubtaada way ku qaboobaysaa adiga waa degaysaa waa nasanaysaa walwal dhan meelaad dhigaysaa ilaahay farta ka saaraysaa wax walbaba marka taas haddaa nimcadaas u weyn ayaan haysanaa maxaa noo sii dheer marka waxaa noo sii dheer ilaahay fadligiis wax kale una siiyo dhan wax kasta ilaahay noo furfuro maanta ilaahay aan ku dhaartay haddaan wax rabo ilaahay waa isiiyaa subxaan allah wax yarba allah ka dhigay ina maanta ugu dambaysa maxaan tegay meel supermarket ah dukaan waxaan raadinayay taybalo iyo miisas oo aan rabay miiskii aan rabay oo dhan hortoor waa waaye markaan waayana ilaahay adaa weyn waaxid mar raba inaan gacan maran tagee miis waxaan rabaa oo aan wax ku aqrisano oo wax ku barano oo aan dhigano qolkeena ilaahay noo sahal ilaahay amarkiisa nin baa noo yimid wuxuu miis baa raadinaysaa waa kana waa idinkeena kii annaga aan rabnay cabarkiisii kalarkiisii culayskiisii lacagtiisii waa exactly waxaan rabna way subxaan allah markaasaan ya allah you never let me down every time aan ilaahay wax weydiisto wallahi wuu isiiyaa alxamdulilah anigana waxa ay qof ma ihi oo istikfaartayra badan samaysa in yar baa la imaadaa ilaah waa ii jeedaaye laakiin waan jeclahay mar walbaba inaan dhegaysto inaan akhriyo inta awoodeeda ah inkastoo adduun jiito gruubkeena oo gabdhaha ku jira ceeb lacuud gruubka waan soo dhigayaa hadda gruubkaas gabdhaha ku jira maasha allah tabaarak allah ilaahay kulligood ajar ha ka siiyo dhiirigelinta iyo jacaylka waxaan la kulma gabdhaha mar dhow laakiin weliga inaan aqaani camala u malaysaa subxaan allah jacaylka ilaahay dartiisa u jeclahay gabdhahaas you cannot imagine soo haddaad tahay gabar walaalayaal wiilal ha noo soo gelina khayr allah idin siiya wiil annaga waa soo dhuntaan haddaa ku jirto qolka ka bax haddii kalena gabdhahena soo dhawaada kusoo dikriga sheekooyinka dhegaysta idinka kiin noo soo bandhiga kusoo dhawaada linkiga waa soo dhigayaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu